Asalaamu calaykum daawadayaal, waa Shubaal Media. Waxaan halkan idinka soo gudbinaynaa taariikh kooban oo aanu kaga hadli doono dilaagii caanka ahaa ee beegsan jiray dadka madaxda ah una ololeyn jiray xuquuqda dadka reer Falastiin, ninkaasoo ay dadka badankii u yaqaanaan Carlos. Filimaan badanna ay ka sameeyeen ninkan oo magaciisa saxda la yiraahdo Ramirez Sanchez. Waxa uu Ramirez Sanchez ku dhashay dalka Venezuela, caasimadiisa Caracas, sanadii 12 Oktoobar 1949. waxa uu la dhashay gabar iyo wiil. Kadib markii ay hooyadii iyo aabihii kala tageen, waxa uu hooyadii u raacay dalka Ingiriiska oo wax ku bartay. Haddaba Ramirez Sanchez oo loo yaqaano Carlos waxa uu ku biiray kooxda xoreynta reer Falastiin ee PFLP loo yaqaan sanadii 1970, isaga oo loo bixiyay magaca Bassam Abu Sharif, kaas oo looga bixiyay xarunta kooxda ee ku lahayd dalka Falastiin. Haddaba waxa oo kale magacaasi weheliyay oo astaan looga dhigay magaca uu ku caanka baxay ee loo yaqaano Carlos. Waxa uu haddaba sameeyay sanadihii 70 ilaa 80 intii u dhaxaysay falal caalamka oo dhan argagax geliyay, kuwaasoo isugu jiray dilal, qaraxyo iyo afduubyo uu ka geysanayo gudaha dalalka Yurub. Haddaba waxyaabaha ugu dhibka badnaa uu dunida u geystay waxa ahayd markii uu afduub u geystay wufuud ka socota wadamada shidaalka dhoofiya ama wadamada saliidda hodanka ku ah ee loo yaqaano OPEC, kuwaas oo shir ku galay 1975 dalka Austria, caasimadiisa Vienna. halkaas oo uu Carlos ku afduubay wufuudii halkaa kasoo qayb gashay gebigooda, iyagoo lagu qiyaasayay 60 inay ka badnaayeen oo ka kala yimid dhammaan dalalka hodanka ku ah saliidda. Haddaba afduubkaas oo uu geystay sanadii 1975 ayaa waxaa la sheegaa in uu ku dilay amaba markii uu halkaa u qabsanayay ay ku dhinteen 3 qof oo uu ka mid yahay sarkaal u dhashay dalka Austria iyo nin Ciraaqi ah iyo nin xubin ka ahaa wafdigii Liibiya. Haddaba Ramirez Sanchez oo ku caan baxay magaca Carlos waxa uu dunida u geystay amaba uu ka geystay falal dambiyeedyo uu ku laayay dad aad u fara badan, isaga oo uu qirtay in uu ninkan gacantiisa ku dilay ka badan 80 qof. Haddaba markii uu afduubka ku geystay gudaha dalka Austria, caasimadda Vienna, ee uu qabsaday dadkaasi madaxda ah ama wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka saliidda dhoofiya OPEC, waxa uu Ramirez Sanchez dalbaday in la sii daayo duuliyihii khaaska ahaa ee Colonel Muammar al-Gaddafi oo xilligaasi xirnaa. Ramirez Sanchez waxa uu kaloo dalbaday in diyaarad khaas ah la siiyo oo uu duuliyahaasi u kaxeeyo iyada oo uu ugu duulay dalka Algeria. Haddaba waxaa la sheegayaa in markii 23 Diseembar 1975 uu tegay dalka Algeria, waxaa la sheegaa in maxaabiistii qayb halkaa la sii daayay, walow isaga oo markii dambe la sheegay inuu diyaarad kale u sii raacay dalka Liibiya, caasimadiisa Tripoli, kadibna halkaa lagu sii daayay dadka intii ka harsan madax furasho lacag gaaraysa 50 milyan in la siiyo xilliga furashada. ayaa mar dambe Ramirez Sanchez waxa uu sheegay in uu bixiyay dalka Sacuudiga. Haddaba markii uu Tripoli tagay ayaa dadka gebigooda maxaabiista la sii daayay, waxaana la sheegaa in uu isagu ku soo noqday dalka Algeria. Haddaba ninkan magaciisa ku caan baxay Carlos ayaa waxa uu u ololeyn jiray amaba ficilada uu sameynayay ah dilalka iyo afduubyada iyo qaraxyada uu ka geysanayay dalalka Yurub. Waxa uu sheegay in ay tahay sabab uu kaga falcelinayo dhulka Falastiin ee la haysto, isaga oo u soo jeedinayay in Falastiin ay xor noqoto. Haddaba Carlos ayaa waxa uu xubin buuxda amaba sarkaal sare ka ahaa ururka xoreynta reer Falastiin ee PFLP loo yaqaano, isagoo magaciisa loogu yeeri jiray Bassam Abu Sharif. Haddaba Carlos ayaa waxa uu ka dhigay adduunka falal aad iyo aad ay caalamka oo dhan uga argagaxaan sanadihii 1970 ilaa 80, isaga oo geystay qaraxyo lagu qiyaasay 27 qarax uu ka kala geystay dalalka Faransiiska, Ingiriiska, Austria, Jarmalka, isaga oo weliba la sheegay in uu ku tooganayay madax aad u fara badan dalalkaas Yurub gudihiisa, isaga oo fadhiyo badan ku lahaa wadamo badan oo dunida ka mid ah.
ayaa diyaaradii u raacay dalka Algeria ugu soo Algeria kaga soo noqday Tripoli Algeria ku socda ayaa waxa la sheegay inay ahayd diyaarad khaas ah oo uu u siday lacagtii iyo dad adiga aan ka badnayn 5 qof tan iyo kulan